daawade ma gadan lahayd suulkaaga si aad lacaga badan uga macaashtid. dalka Zimbabwe waxaa laga hadalhayaa ganacsiga suulasha waaweyn, kuwa dhexdhexaadka iyo sidoo kale midka yar. suulasha waaweyn lacaga qaali ah ayaa lagu gadanayaa, kuwa dhexdhexaadkana lacaga ku xiga ayaa lagu gadanayaa, balse haddii aad suul yar tahay ama suulkaagu aad u yar yahay, lacagta aad ka macaashi doontid ma ahan mid aad u sareysa. baraha bulshada dalka Zimbabwe waxaa haysta kaftan ku saabsan dadka suulashooda ku iibsanaya lacagaha aadka u badan. arrintan ayaa si dhab ah looga qaatay meelo ka mid ah dalalka Afrika. Nigeria ayaa sidoo kale waxaa dadku ay hadal hayaan sheekadan ku saabsan in dadka Zimbabwe ay farahooda lugaha ay iibsanayaan si ay uga baxaan saboolnimada dhinaca dhaqaale xumida ah. website-ka ka soo baxa dalka Zimbabwe laga leeyahay ee loo yaqaan Tongwe and Jack ayaa daabacay in ganacsiga uu ka socdo xarunta lagu dukaamaysto ee ku taala magaalada caasimadda u ah dalkaasi Harare. waxay arrintan ka soo xiganayaan fariimo dhinaca WhatsApp-ka oo muujinaya qiimaha aadka u sarreeya ay soo bandhigeen dhaqaatiir dhaqameedyada dalka South Africa si ay u helaan suulal waaweyn oo dadka ay uga iibsadaan. ma ahan wax caadi ah in qaybo ka mid jirkaaga loo isticmaalo waxa loogu yeero dawo dhaqameed. waxaa arrintani bumbuuniyay dhaqaatiir dhinaca dhaqanka iyo kuwa loo yaqaan sixiroolayaasha. taasina waxaa walaac ka muujiyay sida wararku ay sheegayaan dhaqaatiir dhaqameedka aadka looga ixtiraamo dalalka South Africa, Zimbabwe iyo sidoo kale dalka Nigeria. hase yeeshee koox wariyaal ah oo goobta si qarsoodi ah ku tagay isla markaana muuqaalo ka duubay ayaa sheegay in qiimaha suulka weyn lacagtiisu ay gaarayso $40,000. suulka meel dhaxaadka waxa uu gaarayaa $25,000 oo dadku ay ku kala iibsanayaan, halka suulka aadka u yarne aysan lacagtiisu aad u badnayn oo aysan gaaraynin suulka weyn, balse waxa ay gaaraysaa $10,000. waa wax lagu qoslo dadka qaar ee dalalka South Africa, Zimbabwe iyo sidoo kale Nigeria wax dhalanteeda ayay u arkaan, balse dadka qaarkood ayaa iyagu iibsaday suulasha lugahooda oo ay qaar badan ka maqan yihiin. hadalhaynta iyo kaftanka la xiriira iibsiga suulalka ayaa qabsaday dalka Zimbabwe oo badanaa hashtagida baraha bulshada lagu soo dhigay Jinkwe oo la micnaa suulka luuqadda shoonaha ee looga hadla dalka Zimbabwe, taasi oo keenaysa fudayd dhaqaale iyo sidoo kale xilligan xaaladda dhaqaale adag uu ku jira dalkaasi. balse website-yada ugu waaweyn dalka Zimbabwe si dhab ah uma aysan qaadin arrintan, halka dadka qaarkoodna ay Twitter-ka soo dhigeen walaacooda ku aadan arrintan looga mashquulayo dhibaatooyinka waaweyn ee dalkaasi uu wajahayo. wargeyska Gambakwe ayaa 28 bishii May shaaciyay ganacsiga suulasha lugaha oo ay ka socoto xarun lagu dukaamaysto oo ku taala magaalada Harare ee dalka Zimbabwe oo lagu magac daray Hegmes Mall. balse dadka qaarkood ayaa booqanaya xaruntaasi si ay wax uga weydiiyaan ganacsiga ay soo maqleen ee dalka laga hadalhayo. waaxda dhinaca dabagalka ee wararka been abuurka ayaa dabagashay 2 muuqaal oo la sheegay inay ku saabsan yihiin dad suulalkooda iibsanaya ama qorsheynaya inay iibsadaan. sheekadan ayaa si weyn u qabsatay dalka Nigeria oo ay ka jirto dhaqaale xumo aad u daran, isla markaana laga aaminsan yahay in isticmaalka xubnaha jirka ay keeni karto hodonnimo. bishii Juulaay ee sanadkan 3 qof ayaa lagu xiray dalka Nigeria, kuwaas oo lagu eedeeyay inay gabar yar oo aan qaan gaarin u soo bandhigeen inay iibsato xubno jirkeeda ka mid ah. haddaba daawada aan ku weydiiyey, ma iibsan lahayd suulkaaga haddii aad lacago xaddigan kuu soo sheegan la eg aad ku helaysid, ama fartaada ma jari lahayd si aad lacaga uga macaashtid? si aad u heshid warbixinada aadka u xiisaha badan, follow leh sina share garay si asxaab kale oo aad u fara badan ay warbixintan u gaarto, isla markaana si fudud aynu ku gaarno 100,000 oo follow.